Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum. Inkasta oo aamusnaantu ay tahay waayo aragnimo bini'aadam oo caadi ah suurtagalna ah, haddana inaad u muuqato qof aamusan mararka qaar waxay ka dhigaysaa qof dadka agtooda ka noqda mid cuqdad qaba ama mid isla weyn iyo wixii la mid ah. Laakiin waxa xaqiiqo ah inaad u muuqanayso qof awood leh isla markaana aad loo tixgeliyo oo aan lagula dhicin ficilada qaar. Dabcan waa ayaan jaamac noo xayaan dhalad iyo mowduuc kale oo cusub ku soo dhawaada. Qodobka koowaad, maxay dadku u qiimeeyaan qofka aamusan markasta? Marmarka qaar ee aad bulshada ku dhex jirto sida goob waxbarasho, goob shaqo ama kulan caadi ah, inaad inta badan aamusan tahay oo aanay badnayn hadalkaaga iyo kaftankaagu waxay ka dhigaysaa qof awood leh oo qof kasta xiisaynayo, qadarin badanna u hayo la kulankiisa iyo la macaamilkiisaba. taasna waxaad ku kasbatay inaad tahay qof aan hadal badnayn oo muhiimadda ka hadla, kaftankiisuna xadidan yahay. Qodobka labaad, qiimaha qoysku u hayaan qofka aamuska badan. Waxaa jirta inay faamiliga ama qoysku aad u qadariyaan qofka aamuska badan oo aan loo gacan dhaafin waxyaabihiisa u khaaska ah, sida qolkiisa alaabta u taala, kombiyuutarkiisa iyo guud ahaanba agabka uu gaarka u leeyahay. taasoo sababteedu tahay inay qoysku ka aaminsan yihiin qofkan iyaga ka duwan ee carruurta la midka ahayn, qof xidhxidhan oo dabeecad adag. markastana waxay waalidku u sheegaan qoyska intiisa kale hebel ama heblaayo inay tahay ama uu yahay qof dabeecad xun, sidaas darteed inaga ilaaliya wixiisa. xitaa inagu Soomaali ahaan aad baynu u qadarinaa qofka reerka ka midka ah ee aamuska badan. inta badanna talada ugu muhiimsan ayaa la weydiiyaa qofkaas, sababtuna wax kale ma aha waa inuu yahay qof aan hadal badnayn oo dantiisa u yaqaana. qodobka saddexaad, xiriirka ka dhaxeeya aamusnaanta iyo kalsoonida nafta. inta badan qofka ay kalsoonida naftiisu sarreyso ee aan ahayn qof daciif ah oo jilicsan ama qof u muuqda inuu yahay mid awood gaara leh oo dadku qiimeeyaan, waxa kow ka ah inuu yahay qof aan hadal badnayn oo aamusan badanka. sidaas darteed haddaad u fiirsato xitaa dadka noocaasa ee aad taqaano, dhammaantood waxay wadaagaan qodobkan ah inuu yahay qof naftiisa jecel oo aad u koolkooliya. mararka qaarna waxaabaad arkaysaa isagoo keligii meel fadhiya kuna qanacsan inaanay cidi ka agdhoweyn. qodobka afraad, ma ogtahay inay dumarku aad u daneeyaan qofkan? waxa hubaal ah inay dadka noocan ahi isweydiin badan ku keenaan dumarka ka agdhow, sida kuwa wax la barta, kuwa la shaqeeya ama kuwa dusha ka yaqaana iyo kuwa isku cusub yihiin dhammaantood. sababtoo ah dumarku inta badan waxay arkaan niman hadalka kaga horeynaya, kaftanka kaga horeynaya, inay taleefanka ka qortaan ka codsanaya, inay aad u danaynayaan tusaya. kadibna inantii intaasoo dhan arkaysay niman noocaasa markay aragto nin aamusan oon waxba weydiinin, la hadlin, salaamin, eegin, xitaa danayn inay inani meesha joogto iyo in kale oo tiisa uun ku mashquulsan, aad bay isu weydiiyaan ninka noocan ah dumarku markay la kulmaan ama arkaan. taasina waxay ku keentaa gabadha inay aad maskaxdeedu isu weydiiso muxuu yahay qofka noocan ahi, ilaa hore umay arki jirin shakhsiyadda noocan ah ee weliba ninka ah. taasina waa sababta ama awoodda ay leedahay aamusnaantu. hadday raggu fahmi lahaayeen qodobkanna, waqti kumay bixiyeen inay hablaha daba ordaan, iyagaaba noqon lahaa qaar aragtida koobaad kasbada, inanta maskaxdeedana ku beera isweydiin badan. qodobka shanaad, maxaa looga xishoodaa qofka aamuska badan? waxaa jirta qofkan oo kale qof kasta oo ay is yaqaanaan wuu maamuusaa, qiimeeyaa, qadariyaa, tixgeliyaa. marka uu dadka meel la joogana aad baa looga dambeeyaa oo looga xishoodaa, waayo qofkani isagaa kasbaday in dadku noocan ula dhaqmaan. xitaa mararka qaar waxaad arkaysaa iyadoo la leeyahay hebel hadduu maqlo waxaas waxaa laga yaabaa inuu si adag inoola hadlo. sababtuna wax kale ma aha ee hebel ama heblaayo waa qof aamus badan. tanina kama dhigna inaynu dadka hadalka badan meel kaga dhacayno ee iyaga qudhoodaynu leenahay hadalka badan yaraysta oo gaagaabiya kelmadaha
markaad hadlaysaanna shaandheeya hadalkiina. haddii aynu eegno suugaanta Soomaaliyeed waxay ka tidhi hadal badnaantana waa kii abwaan hadraawi lahaa maansadiisii sirta nolosha 3 eray halkii dooni 30 yaanay kaa qaadan. intaa kadib waxaynu iftiiminaynaa xitaa haddii lagugu khaldamo, lagu caayo, lagu aflagaadeeyo, kaliya ka aamus qofkaas oo ka dhaqaaq, taasina waa awood qarsoon. qofkii ficilkaa sameeyey isla xaaladaas wuxuu dareemayaa daciifnimo badan, waayo dhammaan hadalkiisii waxba kama dhigine waad ka aamustay oo kaliya, taasina dil way kaga xun tahay isaga. ugu dambeyntii hambaliyo, haddii aad tahay qof aamus badan, haddii aanad ahayna isku day inaad dhaqankan tijaabiso, kadibna wixii kuu soo baxa nagula wadaag qaybta commentiska markaad soo tijaabiso faa'iidada aad ka hesho iyo ka falcelinta dadka. haddii aad hore u ahaydna waxaad tahay qof cajiib ah ee ogow taas. wassalaamu calaykum.